fayoobi sabaha kabadho haye daayaha aragti reer laalays kolley waynu mahadnaqaynaa wadada reer laalaysnahay mahadnaq bay noo tahay deegaanada iyo jiidaa dhan aanu soo marnay oo iskuulka la ammaanayaa tihiin baahi aa qabtaanna degmada iyo wasaaradda waxbarashada iyo gobolka iyo hay-adaha wax naga caawiyaaba waxay ka jawaabeen in baahida taalla halkan wax laga qabto Soomaalidu waxay tiraa baadinimaan lahayn bay ag taalla meelo badan oo wax la geeyona baahidii taallay looma adeegsado laalays waa meelaha ugu nasiibka badan ee xagga waxbarashada tuulooyinkan ee degmadu maamusho runtii golahan ka tirsanahay waan u mahadnaqayaa gobolka waan u mahadnaqayaa wasaaradda waxbarashada waan u mahadnaqayaa waxaanu ku faraxsanahay insha Allah taala waanaanu ilaashan doonaa deegaan ahaan halkan waxaan maanta Janiska nooga faa'iideysanayaa mudane gudoomiye labada gudoomiyaba in dhulkii saldhiga aynu ugu tala galnay xuduudiisii ay sugtaan dadku waqtiyada kala guurka baahi dhul baas ka dhacdo oo waa la ordaa dhul booba imaada dhulkii danta guud aan ugu tala galnay ee iskuulka hore ka soo hooseeyo oo dhan saldhiga aan ugu tala galnay haddii control la sameeyo aan ugu tala galnay in cashuuraha barigu ay qayb ka degaan intiiba goobtu yahay waxaana waanu tusay waqtigooda aynu saamaxan awgeed laakiin in amnigiisa ay sugataan dhulka maamul degmo ahaan iyo maamul gobol ahaan ayaanu isagana insha Allah taala maanta hadaan idinka codsanaynaa laakiin bimacni kalimaan halkan u taaganahay wax weeyaan mahadnaq oo idinka mahadnaqaynaa maanta ay bishu tahay 7 wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka saaxil oo nagu weheliyo maayirka degmada berbera xildhibaanada madaxda kale nala socota bulshada reer laalays dhamaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaan ilaahay baa mahad leh subxaanahu wa tacaala ilaahay baynu mahad celinaynaa waxaa kaloo mahad celinaynaa bulshada reer laalays ee sida fiican noo soo dhaweysay aad baan uga mahad celinaynaa mudane gudoomiye galaaskan wuxuu ka mid yahay galaasyada lagu kordhiyay dugsiyada runtii iyadoo laga jawaabayo baahiyaha waxbarashada ee deegaanka waxaanu kaloo ku qotomaa himilada waxbarashada ee ah fidinta iyo gaadhsiinta waxbarashada in goob kasta la gaadhsiiyo taasoo ugu horeyso in dhismaha laga hirgeliyo waxa markaa ay wasaaradda waxbarashadu u qoondaysay in halkan lagu kordhiyo hal galaas waxa ka gacan siisay hay'adda Save the Children baa ka gacan siisay oo maalgelisay waxaan markaa u mahad celinayaa cid kasta oo ka gacan geysatay dhismaha hirgelintiisa oo ugu horeyso wasaaradda waxbarashada ee heer qaran iyo hay'adda Save the Children oo maalgelisay labadaba waan uga mahad celinayaa bulshada reer laalaysna waxaan ku adkeynayaa in ay runtii ka faa'iideystaan ilaashadaan ku dadaalaan waa goob waxbarasho runtii deegaankan goobaha ugu muhiimsan ayay ku jirtaa goobtano ee wasaaraddu isha ku hayso ka maamul ahaan iyo ka degmo ahaan iyo ka waxbarasho ahaanna wixii baahiye marba taagan waa nagu waajib waana ku dadaalaynaa haddii aan la yidhaahdo wixii ka dhiman inaan u dhammaystirno mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan uga mahad celinayaa madaxda wasaaradda waxbarashada ee hormuudkii wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo hay'addii maalgelisay iyadana waan uga mahad celinayaa waxaan kaloo u mahad celinayaa maayirka degmada oo runtii isaguna mar kasta waxbarashada la garab taagan taageero iyo maxaan ku raadayay maalgelinba la garab taagan markaa mudane gudoomiye maanta waxaynu uga jaraynaa xadhiga waxaananu ugu ducaynaynaa in ilaahay ka dhigo kii barakooba ee laga faa'iido sidii horeba looga faa'iidaya allah kii laga faa'iido ee barakooba ayaan ilaahay uga baryayaa kalabaad dhammaanteen farxad bay noo tahay in caruurteenna iyo baxeenna ku soo barbaaraya tuuladan laalays inay galaaska ay ku farxaan iyadoon hore u arkaynin markii walaalkii wax ku baranayeen waxaa keliya innaga inoo ballan waxa weeyaan inaan mar walba ku faraadeegno oo maxaynu ilaashanno wax kasta oo dan guud ah inoo soo kordhaa inaynu garanno in inagu leenahay marka labaadna waxa weeye siyaasadda wasaaradda waxbarashada mar kasta oo aynu helno caruur wax baranaysaa uga warwarmayno macalin uga warwarmayno galaas
ugu warwari mayno wax alaali wixii waxbarasho ka xidhnaa marka dad waalidiinta waxaan leenahay caruurta keena oo soo buuxiya iskuulka isagoo maasha allah imika jooga haddana iyuu naga dayacmin ilmo yari waayo caruurtuna waa mustaqbalkeenii waa mustaqbalkii dalka halkan aynu maanta joognaa waxa weeye tuulada laalays waxaynu xadhigga ka jaraynaa hal kalaas oo aynu ku kordhinay iskuulkan laalays ku yaalla iskuulka halkaa kalaas aynu ku kordhinay wuxuu ka yimid baahidii ay soo codsadeen bulshadu oo xukuumaddu ka soo jawaabtay waxaan uga mahad celinayaa hay-addii naga caawisay ee Save the Children dhismo qurux badan baa maqsinkaa lagu kordhiyey wahaa iskuulku waxaan bulshada u sheegayaa kolba waxay baahidu tahay waa la helayaa waxba lama waayiyo wax warwariyo idinka hayn hadday adeega kale tahay iyo hadday dhismayaasha tahayba muhiimaddu waxay tahay oo aynu rabnaa dadweynaha degan inta ku dhow laalays waa inay waxbarashada caruurta uga faa'iideeyaan waa inay xoolaha iyo isku dhex wadaan iyo aqoonta qaarna waa in loo diraa caruurta xoolaha qaarna waa in aqoonta la baraa oo la isbedelaa waxa weeyaan waxbarashadu horumarka waxaynu ku gaadhaynaa waxa weeyaan inagoo ubadkeennaa waxbarna maskaxdooda kobcinna horumar gaadhsiinna dalkeenna horumar buu gaadhayaa marka waxaa loo baahan yahay oo kale danta guud ee noo soo korodha inaynu kolba hagaajisano wixii agabaynu helo aynu daryeelno dhismaha laftiisana daryeelkiisa iyo ribeerinkiisa la ogaado wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum kolley aamin baynu joognaa safar kalena waanu sii gelaynaa oo tuulooyinkan naga sheeyaa baahidan maanta halkan ay dawladda hoose degmada berbera ama golaha deegaanka uu ka jawaabay waa baahi deegaankan uu qabay oo xagga waxbarashada waa 2 kalaas dhismihiisa waanu ka markhaati kacayna dadka deegaankuna inay soo dhoweeyeen ilaa 5 doonaan farxad iyo reerreyn bay nooti dhammaanteen maanta inaynu halkan isugu nimaadno iskuulkan waa 2 kalaas iyo xafiis lagu sameynayay dayactir waxa uu ka turjumayay ama uu ku jiray waxqabadkii ugu dambeeyay ee sanadkii imika aynu gabagabaynay ee ina dhaafay qorshe hawleedkii sanadkii 2020 ayuu ku jiray wixii ugu dambeeyay ama mashaariicdii ku jiray sanadkii dhamaaday waxqabadidii ugu dambeeyay ku jiray buu kamid ahaa labadan kalaas ee hadda taaganahay sanadkii hore markii bartan la soo marayay goobtani sida u ekayd iyo hadda si ay u eg tahay farqi weyn baa u dhaxeeya runtii baahida waxbarasho ee iskuulkan loo qabay ee halkan taallay markii aanu daraasad ku samaynay jawaabteedii waxay noqotay inaynu dhisno ama aynu ka jawaabno baahida halkan taagan falilaahi alxamdu waa wax ilaahay loogu mahadnaqo hal miduun baanu kula dardaarmayaa reer biyooley dadka halkan degan ee ku nool labadan kalaas waxa loo dhisay waa ubadkeenna haddaynaan ubadka keenin iskuulkii waa kaa inoo diyaarahe dundumo meel ka taagan wax alaali wuxuu kaga duwan yahay ma jirto taan kula dardaarmaynaa waxa weeye inan kasta iyo inan kasta oo da'dii waxbarashada taagan inta aynu gacanta soo qabanay aynu iskuulka keenno inay baahi kale oo extension ah ama kalaasyo kale lagu kordhiyo inaynu abuurno gacanteenna ku abuurno waxaan hubaa inay ka fara badan yihiin carruurta halkan joogtay waxbarashada u baahan intan laakiinse marka intan la buuxiyo ayaa imanaysaa in la keeno galaasyo kaloo dheeraadana marka waxaan idinkula dardaarmayaa waxa weeye ka faa'iideeya iskuullada iyo kalaasiska la dhisayo kalaas kasta dhismihiisuna waxay ku xidhan tahay ardayda aynu haynayn mar walba gacanta ku hayno taan idinkula dardaarmaya waa taa oo dhismaha aynu ka faa'iideyno lacagtii iyo maaliyaddii ku baxday ee cashuurta dadweynaha laga soo qaaday reer berberana taasaa lagaga ga'mayaa oo maamulkii iyo golihii aad doorateen uu kaga ga'mayaa dhammaanteen waxaan ku salaamaynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore waxaanu idinka mahad celinaynaa horta ilaah baa mahadle marka hore waxaanu idinka mahad celinaynaa horta hawsha tan in badan baan golaas yar ku xalimnay waxaa weeye yar baanu golaas yar waardan maxkaanu kala fadhiisanaa dadku uu nagu hayay waxaanu idinka mahad celinaa horta waxqabadkan maanta halkan aynu xadhiga kaga goynay waa idinka mahad celinaynaa
waxa weeye wixii naga dhiman ee kale ee maanta halkaa ka dhimanna dee waydii ka sugaynaa haddii alla ka dhigo taa runtii waa arrin taariikhiya weeyaan in maanta dugsigii aynu ka jarayno xadhigga baahi weyna loo qabay oo aad aragto ubadka jooga iyo baahida loo qabay runtii waa arrin qiimalo taariikhiya waa arrin markaa mudan in looga mahad celiyo cid kasta oo arrintaa gacan ka geysatay oo ugu horeeya maamulka dowladda hoose ee degmada Berbera ee uu hormuudka ka yahay Maayir Cabdishakuur oo runtii si dhow ula shaqeeya waxbarashada markasta si dhow ula shaqeeya waxaana ay ka jawaabaysaa arrintan oo siyaasadii qaranka ee waxbarashada ahayd in la gaarsiiyo goob kasta in la gaarsiiyo aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa ka waxbarasho ahaan dareenka iyo mas'uuliyadda ay ka jawaabeen aad baan uga mahad celinaynaa bulshada reer Biyaleena waxaan kula ballamaynaa kula dardaarmaynaa inay labada galaas ee maanta xadhigga laga jarayo ka midho dhaliyaan ubadkii yaraa iyo da'yartii u baahnayd inay ka faa'iido ay geeyaan in qaar kale la dhisaana waxay ku xidhan tahay in labada hore wax lagu dhigto la buuxiyo ayay ku xidhan tahay marka waxa loo baahan yahay waalidka iyo waayeelka kaleba inay ku wacyigeliyaan maadaama loo dhisay oo maanta laga jaray inay carruurta keenaan la isku wacyigeliyo waa ogtihiinoo deegaanka dugsiga leh wuu ka magac roon yahay wuu ka qiimo badan yahay deegaanka aan waxbarashada iyo dugsigu aanu ka hana qaadin dadka yaryar ee maanta halkaa jooga ayaa waxaynu ka rajaynaynaa inay madaxdii berri ka soo baxaan inay mas'uuliyiintii berri ka soo baxaan inay mas'uuliyadaha sugaya berritoole ay ka jawaabaan taana waxay kaga jawaabi karaan marka wax la baro ka xukuumad ahaan annagoo isku duuba waa u dadaalaynaa dowladda hoose iyo dowladda dhexba waalidkana waxaa laga doonayaa inay u dadaalaan oo keenaan ku dadaalaan sida ay u keeni lahayn ugu dambayn gudoomiye wuxuu ka mid yahay dugsiganu dugsiyada ay dowladda hoose ka hirgelisay iyada oo maamul daadejintii siyaasaddii maamul daadejinta iyadoo fulinaysa dugsiyada ay ka hirgelisay deegaanada runtiina degmada Berbera iyo maamulkeedu waxay ka jiraan degmooyinka ugu horeeya ee hirgeliya nidaamka maamul daadejinta aad iyo aad baan uga mahad celinayaa ugu dambayn waxaan u mahad celinayaa gudoomiyaha gobolka Saaxil oo isaguna mar kasta noo dhaga nugul wax kasto ay waxbarashada aan uga baahanana gacan naga siiyo mar kastana nagu garab taagan annaguna ka waxbarasho ahaan waxaanu ballan qaadaynaa wixii ka dhiman inaanu dhammaystiro waxa inoo ballana in labada galaas la buuxiyo laga midho dhaliyo ayaa inoo ballana waxaanan ilaahay ka rajaynayaa kuwii barakooba ee laga liibaano ee laga aflaxo inayno iskuulkan iyo dhismihiisa iyo ujeeddada loo dhisay waa laga soo hadlo waxba ku noqon mayno reer Biyaleew 4 qodob baan idinka doonaynaa 4 qodob iskuulka maanta halkaa ka dhisan 4 qodob baa laydinka rabaa inaad buuxisaan haddaa 4taa qodob buuxin weydaanna iskuulkaasi ma taaba qaadayo qodobka koobaad waxa weeye carruurtaa yaryar ee dhasheen u bixiinaa ilmaha mustaqbalka aad u aayeeso ee wax la qaybsanaya qayrkii inaydaan qayrkii ka reebin ee iskuulka 2 galaas way yaryihiine dugsigan hoose dhexe sare waa inuu noqdaa waa uu noqdaa iskuula ku faantaan oo la yidhaahdo Biyali buu ka soo baxay ilmahaasi waa wasiir weeyi waa maayar weeyi waa madaxweyne waxaan doonaynaa ubadka inaad keentaan oo waxbarashada u sii daysaan waa ilmaha mustaqbalkaaga ku anfacaya wey intaad ilmahaaga wax barto ayuu ilmaha kale ka wanaagsan ka karti badan yahay marka haddaad wax barto uma baahna barbaarin kale wax bar adigu hadhowta ka waroonaysa mustaqbalkiisa waa kow qodobka labaad waxaan doonaynaa ka doonaynaa iskuulku inuu iskuul u muuqdo oo guddida iskuulka iyo guddida magaaladu kala shaqayso oo dhulkiisa la banneeyo oo loo calaamadiyo oo carruurtu maxaan ku dhahdaa ay garanayaan inay nabadgelyo ku yimaadaan iskuulka kolba ooda inay hoosta ka soo gelinin dhulkaa bannaan baynu haysannaa magaaladu way koraysaa iskuulka dhulkiisa ha loo daayo ha loo nabadgeliyo oo ilaaliya iskuulka oo waajib idi saarane waa meesha ilmaha keenaysid qodobka saddexaad waxaan doonaynaa
inaad dhiraysaan ood beertaan iskuulka waxaa sharaf u ah inuu bilcoonaado ilmahaaga meeshaad geenaysaa meel nadiifa oo qurux badan inuu noqdo markaa waa inaad dhiraysaan oo weliba isu qaybisaan intiina waaweyn nin walba geed lagu qoraa leedaa geedka waxa beere hebel kaana ardaydana magaca ugu dartaantaada haa ajarna waa ilaa qiyaamitu kacayo o dhan waad guranaysaa laba qodob soo igama haysaan qodobka saddexaad qodobka afraad ee ugu dambeeya waxa weeye waa ilaalinta wey waxaa ilaalinaysaan waashmaanka iyo maamulaha iyo macallinka intuuba idinka idiin shaqeeyaan waa ilaalinaysaan iskuulka dayaca ka ilaalinaysaan roob baa ka daa halkanoo way ka roob badan tahay meelaha kale dabayluhu wataa inta badan hadduu daaqadaha furan helo roobku siliigu gujinaya danta jigadaa raacaysaa dabadeedna wuu dumayaa iskuulkaasoo ay yeelan maayo waa ogeeda iminku intuu naga dumsanaa galaaskii aad idinku dhisteen intuu dusanaa waa garanaysaan waa inaad ilaalisaan oo ku ilaalisaan oo maamulaha u sheegtaan ataada galaaskiis albaabaa furan daaqad baa furan mid baa wax hor dhigtay dhagax baa laga qaaday inay ilaashataan baa ballan inoo ah waxaan ku soo gebagabaynayaa oo aan leeyahay dawladdu waxay diyaar u tahay mar walba haddii ay maanta keentaan arday keentaan 2 kale iyo 3 kale iyo 4 kaleba waa la dhisayaa macallimiintu waa idiin soo kordhinaynaa wax walba diyaar baan ilaa idinla qabanno laakiin dadaalka xaggiina ka laaba marka hore ilaahay baa mahad leh inoo suurtageliyey kormeerkeennan iyo xadhigga jarkeennan aynu ilaa saaka ku soo jirnay marka labaad waxaanu mahad celinayaa dhammaan dadweynaha sharafta leh ee reer Biyooley ee halkan jooga marka saddexaad waxa weeyaan maanta waxaynu joognaa iminka maraynaa tuulada Biyooley waxaynu xadhigga ka jaraynaa labadan kalaas ee lagu kordhiyey iskuulka ee runtii qiimaha badan leh ee ay dawladda hoose dhistay dawladda hoose oo runtii gacan weyn mar walba waxbarashada ku leh iyo adeegga bulshadaba idinkana waxaa idinla gudboon wixii iskuulkaasi uu u baahan yahay ee adeeggiisa ahee laydiin keeno inaad ilaashataan xukuumaddu iyadaa idiin ballan qaaday inay adeegga bulshada idin soo gaadhsiiso oo weliba idiinsii labanlaabto laakiin idinkana waxaa laydinka doonayaa inaad wixii kolbaa heshaan aad dar yeeshaan waxaan intaa raacinayaa dadkeennu waa xoolo dhaqato waxbarashadiina inaynu horumarinaynu doonaynaa horumarka dalkeennu wuxuu ku xidhan yahay sidaynu kolbaa aqoonteenna u kobcinno oynu u korinno oynu ubadkeenna wax u barno waxaynu doonaynaa markaa haddii laha yidhaahdo inaad dadaal samaysaan inaad carruurta iskuullada ku soo camirtaan inaad wixii adeegeeda heshaana dar yeeshaan intaasaan ku soo gabagabaynaya daayaha aragtida fayoobi sabaha kabadhoohaye daayaha aragtida fayoobi sabaha kabadhoohaye qaranka dhismayay arkaan kadhagaxdhigayay arkaan dhammaystirmayay arkaan wanaaga dhashay arkaan dhibciya dhalag bay arkaan qaranka dhismayay arkaan kadhagaxdhigayay arkaan كل بعد صلاة الظهر بين شوقنا أرضينا وقت كل بين شوقتها وعن شوقنا تولد الدبيتشو تولد بيرليا وقبل الشدة بدن لا تولين كديجانا دن سكول كانوا عدس كيمي تولده هي مامل كده وعيسو قد بين مامل كقولها ديجان كا مامل كقولها ديجان كنا ميزانية سندات كي هروكو دراي دوت دير يو فلانقين فرا بدن دبديت قولوا وسوا انسحيي ما يركنا ونكسوا مني الحمد لله رب العالمين انت واكاي نور سنه نور دمسترن تردارن كان halkan ka jeedin wax weyn maadaama ay tahay magaalada marka soo marnay dhalinyarada yar ka caanta ee maanta de waxbarashada u baahan way ku badan tahay tuuladan gudoomiye waxaan doonaynaa dadka inaad ku wacyi geliso in wax la barto reernimadii baa laga tagayaa qalinka maanta shaqeynaya qalinka isku qolatiin ninkii wax bartay in baa ummadana deegaankiisana wax tari karaya naftiisana wax tari karaya waxaan horta marka ugu horeysa
halkan ku salaamaynaa madaxda tan noo timi ee haddii baxume badha saabka iyo maayirka iyo haddii baxume qaybaha kale la socdaba ayaan kusoo dhaweynaynaa waxa weeyaan waxaan kusoo dhaweynaynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halka kan waxa weeyaan waxa xadhigana looga gooyey iskuulkiina loo dhisay imaka waxbarashadu marka ugu horeysa way naga baabasanayd iskuulna maanaan lahayn hal qol baanu lahayn oo baabaa maantana waxa weeye waxaana loo sameeyey iskuul dhan oo intii kastaba wax lagu baran karayo caruurta iyo waxa weeye haddii baxugmiye dadka wax baranayaan inay ka soo qayb galaan oo yimaadaan oo la keeno oo waxa weeye maanta gurilaan laga hadli maayo macalinimaan laga hadli maaye waxa weeye caruurtii in lagu tabcaabaa la doonaya deegaanka waxaan leeyahay ha la keeno haddii baxugmiye waajibaadka ha la guto haddii baxugmiye laga faa'iidaysto haasi waa taa qodobka labaad waxa weeye madaxdu waxay noo qabatay waxa weeyaan dee waa madaxdeenni waana mahadsanyihin wixii ay haddii baxugmi ay noo qabteen ee hore waa laynagu eegaya wixii dambena waa laynoo qaban doonaa haddaynu waxa hore hagaajinno haddii aynu waxa hore xumaynana waxa weeye dee wixii hore aynu xumayno canaan baynu leenahay taasna waxa weeye inaynu iska ilaalino ayaa fiican qodobka saddexaad waxa weeyaan haddii aa wax noo qabateen aanu idinka guddoomanay wax dambena waa noo qaban doontaan waana idinka guddooman doonaa haddii baxumi sidan oo kale haddii ilaahayna gaadhsiiyo bacda salaan waa idinka mahad celinaynaa sida weyn ee noo soo dhammayseen annagoo ah madaxdii gobolka saaxil oo hogaaminayey badha saabkii gobolku aad baan idinkaga mahad celinaa waa iska kooban yahay falilahi alxamdu waxaa sheegteen in runtii baahi weyn aa u qabteen dugsigan annaguna aanu dareensanayn laba qodobuunbaa halkan aan ku darayaa waa mide waa uga mahad celinaynaa ka waxbarasho ahaan maamulka dowladda hoose ee cabdishakuur uu hormuudka ka yahay baahida ay ka jawaabeen iyo dhismaha ay hirgeliyeen waa uga mahad celinaynaa cid kasta oo gacan ku siisayna waa uga mahad celinaynaa idinkana kelmaduun baan idin odhanayaa halkaa maanta labadaa aqal ee la dhisay ee macallimiintiina joogaan ubadkaa yaryar in looga faa'iideeyo wax lagu bara ayaa loo dhisay yay dhicin iyadoo macallinkii joogo oo aqalkii dhisan yahay in carruur aan waxba dhiganaynin magaalada joogto yay dhicin taas waxay noqonaysaa dembi ubadka laga galay bay noqonaysaa maadaama loo dhisay oo macallinkii joogo haddana carruur magaalada joogtaa ay waxbarasho seegto arrintaa dembigeeda waxaa yeelanaya cidda markaa mas-uuliyadda leh arrintaa ka taxadira labada galaasna waa inay noqdaan laba galaas oo buuxa maadaama ay deegaanku beerale yahay bulsho badanina ay ku nooshahay waxaa loo baahan yahay in la camiro oo carruurta looga faa'iideeyo ubadkaa yaryar ayaaynu u aayi doonnaa kaasaynu gacantiisa ku dhacaynaa mustaqbalka adigaa mas-uuliyad uu kaa noqonayaa haddaad maanta wax bartana si wanaagsan buu hadhow mas-uul kaaga noqonayaa haddaad maanta dayacdana asna hadhow buu ku dayacaya marka ha loo dadaalo dowlad iyo shacabba ubadkaa yarar baynu u dadaalaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan uga mahad celinayaa golaha deegaanka ee degmada berbera oo runtii mar kasta waxbarashada la dhinac taagan hiil iyo hooba la dhinac taagan arrintanna hirgeliyey waana arrin taariikhiya idinkana waxaa laydinka baahan yahay inaad dadaal muujisaan oo ku tartantaan aqoonta waa laga soo warramay iskuulkan iyo dhismihiisii waxaan jecelahay uun dhammaantay isku af baan nahay isku kelmad baan nahay taasoo aanu ku matelayno dowladda iyo siyaasadda wasaaradda waxbarashada ee qaranka jumhuuriyadda somalilan oo ah haddii ay 10 arday meel joogaan in loo sameeyo iskuul loo sameeyo marka waxa weeyaan waxaan leenahay dadka halkan degan oo allaha barakeeye dad aada u tiro badana waxaanu leenahay ubadkan oo mustaqbalkii uu dalkani lahaa ilmahaagu maanta hiilkaaga baahan yahay ilmahaaga maanta haddaad waxbarasho kula tutuunsato berito waad u aayaysaa ilmaha halkaa joogaa
berito oo hoggaankii dalka weeye ama ha noqdo hoggaamiye ciidan oo nabadgelyo ka shaqeeya ama ha noqdo wasiir ama ha noqdo madaxweyne ama ha noqdo maayar ama ha noqdo barasaab waa dadka mas-uuliyiinta dalkan wuxuu ka noqonayaa waa haddii aad waxbartaa haddaad waxbari weydo dee kuwa waxbartay unbuu u shaqaynayaa ogow kuwa waxbartay ee cilmiga iyo aqoonta leh ayuunbuu waashmaan u noqonayaa ama adeegu u noqonayaa marka waalidiinta waxaan leenahay weliba hooyooyinka idinkaa ku dhabarjabay ubadka labadan galaas way yar yihiin haddaad labadan buuxisaan isa sanadka gudaheeda 2 kale iyo 3 kale waa dhisana laakiin waxaad ka doonaynaa in ubadkiina aad keentaan maadaama aad haysataa waxbarasho bilaasha macallin aan lacag kaa doonayn iskuul aan lacag kaa doonayn ilmahaaga keen waxa kuu bartaan ku leenahay annana waxaan kuu ballan qaadaynaa annagoo oo matelana dowladdii oo ku hadlayna afkii wasaaradda waxbarashada oo ku hadlayna afkii deegaanka waxaan ku leenahay ha ka warwarin macallinkii wax barayey ha ka warwarin galaaskii loo dhisayey ha ka warwarin kuraastii ku fadhiisanayey mas-uuliyiinta waxaa mas-uuliyaddeedii saaran waxa weeye inaad ubadkiina ku dadaashaan oo haddaad gelika dambe gelika hore iskuulka usoo dirto gelika dambena adhiga u dirto ilmahaas 2 jeer buu ku intifaacsanayaa laakiin haddaad adhiga un ku foofiso ama qolqoladan kuu fadhiisto hadhow ma noqonayo mid khayrkii wax la qaybsadaa waalidiinta waxaan leenahay ubadkaaga khayrkeeda ha ka reebin ilaahay khayrkooda kama reebee isma laha bulshada halkan degan iyo iskuulkan isma laha run baynu isu sheegaynaa caruurtiina keena caruurtiina waxaa idii barato kuwaasaa halkan ka tegi doona kuwaasaa wax u noqon doona wax u qaban doona meeshan oo magaalada horumar u samayn doona oo nolosheeda wax ka bedeli doona waxaa kaloo kula dardaarmayaa iskuulka inay ilaashataan waalidiintu inay ilaashato oo ay ku ilaaliso maamulaha oo ay ku ilaaliso macallinka oo ay ku ilaaliso waashmaanka roob badan baa ka daa halkan way naqaanaa waqtiyada qaar wuxuu wataa dabaylo iskuulka haddii daaqiduu furan yihiin markaba ha fuula odhanayaa oo sare u qaadayaa waa inaad ku warwartaa meesha ubadkaaga wax ka dhiganayo aad sheegtaa tidhaahdaa iskuulkii daaqiduu way furan yihiin ha loo xidho marka halkaa ka soo muuqdo waxa ugu horreeyaad ku fakataa waa gurigaaga marka waa inaad garataa masaajidka iyo iskuulka iyo biyaha iyo wax kastoo dan guuda inaad tahay waxa keliya hantida ugu dhaad leedahay tay hantidaa wada leedihiin ee idinka dhexaysaa waa hantida danta guud weeyaan taada gaarka oo keliya ku mashquulina markuu roobdaayo iyo marka dabeel socdaanba iskuulka iyo isu qaybiya oo ha laga war doono masaajidka hala ilaaliyo oo iskuulka hala ilaaliyo danta guudna iyadaa mafaatiixiso ah midunbuu furaa biyaha u horeeya marka biyaha lagu sameeyo haddana waad arkaysaa masaajid baa markiiba dhismay haddana xanaanaa dhisatay haddana iskuul baa dhistay beritan de saldhigii baa imanaya haddana dugsi saraa imanaya jaamacad baa imanaysaa wadadii baa imanaysaa wax kastaaba saas isu daba socdaan haddii waxa hore kaa dayacmo ma soo soconayo miftaaxaas hore ma soconayo marka waxaan kula dardaarmaynaa inaad ilaalisaan oo aad dar yeeshaan oo aad ka warhaysaan ubadkiina inaad iskuulka keentaan wabillahi tawfiiq waxaan kusoo dhaweynayaa barasa mar labaad waxaan idinka mahad celinayaa soo dhoweyntiina fiican ee quruxda badan marka saddexaad fariinna waanu idin faraynaa annaga xukuumad ahaana dee waxaanu idiin sheegaynaa uun wixii aad naga sugayseen wixii aad soo codsateena waa naga hesheen waxaa kalena waxaa naga go-an dhinacan waxbarashadayna maanta joogno in adeega bulshada ee dhammaantii in ummadda la wada gaadhsiiyo tuuladu doonana ha joogo meeshu doonana ha ku noolaadee waxa weeye taasi xukuumadda way ka go-an tahay iyadoo uu ugu sarreeyo madaxweynaheena jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi idinkana waxaa laydinka doonayaa adeegga kolba laydiin keeno noocu doono ha ahaadee inaa idinkuna dayactirataan oo hagaajisataan maanta halkanaynu xadhigga ka jaraynaa waa iskuulkii tuulo dhibijo runtii waxa weeyaan codsigiinnii buu ku yimid waana laga soo jawaabay wax kastoo baahidu tahayna sidaasaa lagu jawaabi doonaa waxaan doonaynaa oo kale fariinta kalen doonaya inaad i gaadhsiiyo dee idinku kolley deegaan baa tihiin oo beeralayna waa tihiine kolley sida tuulooyinka kale waad ka yara sarraysaanoo waa laga yaabaa inay carruurtiinnu waxbarashada ay horena ugu dadaasheen laakiin waa inaad ka sii kordhisaan baanu idinka doonaynaa inaad ka sii kordhisaan oo dadaal samaysaan oo hooyada iyo aabbuhu ilmihiisa uu ku tabco oo siduu wax u bari lahaa uu ku dadaalo waxa weyaan caalamku labuu u qaybsan yahay mid aqoontiisu hooseyto horumarkiisuna hooseeyo
iyo mid aqoontiisu sarrayso horumarkiisuna sarreeyo waxaynu higsanaynaa waa horumar si aynu halkaa u gaadhno ubadkiina iyo carruurtiina ku dadaala waa waalidkii berrito waa madaxdii berrito daayaha aragtida fayoobi samaha kama dhoohane daayaha aragtida fayoobi samaha kama dhoohane qaranka dhismayay arkaan ma dhagax dhigayay arkaan dhammaystirmayay arkaan wanaagga dhashay arkaan riya dhalag bay arkaan qaranka dhismayay arkaan ma dhagax dhigayay arkaan safar dheer baanu soo gallay tuulooyin fara badan baanu soo marnay annaga oo soo khatimayna muddaxileedkayagii golayaasha deegaanka ee dalka iyo waxqabadadii sanadkii 2020 walow kan 2020 aanu bilownayba tuuladani waa tuulooyinka buuraleyda ah ee golayaasha deegaanka ee degmada berbera ay ka soo baxaan baahi baa ka jirta halkan waxbarasho mujtamaca dalka oo kordhaya awgeed oo aynu ka mid nahay baahidiinii waxna waa laga jawaab waxna deegaan ahaan waa qabsateen ahmiyadda aynu leenahay waxa weeyaan ummaddu waxay isku dhaaftay maanta waxbarasho mid maadiya iyo mid diiniyaba marka koowaad ilaahay baynu u mahadnaqaynaa ina kulmiyey kulankan sharafta leh waxaan u soconay waxa weeyaan tartan baa lagu jiraa ilmihiina inaan ilmaha tuulada kaleedu ku xigta aanu ka dheerayn in waalidiintu ay keenaan ardayda iskuulka ka diiniga iyo ka maadigaaba safarkan waxaan ugu hogaaminay barasaabka gobolka oo uu helinayo guddoomiyaha golaha deegaanka isduwa waxbarashada gobolka saaxil bahda saxaafadda xildhibaanada golaha deegaanka iyo mas-uuliyiinta kale ee degmada dad is wada garanayno kolley was wada weji garanayna wada faa'iido doon baynu nahay waxaynu doonaynaa in ilmaheenu koro wax baranno aqoon baa lagu tartamayaa maanta oo qabyaaladii waa laga baxaya xafiis kasta inanka wax garanaya haddii maayarka 10 carruur ee uu dhalayba 10 kuwa ay aqoon-yahan yihiin xafiiskiisa 10kiisa way ka shaqaynayaan cid alle cid ka hor istaagayso la odhanaya eex buu ku geeyey ma jirto aqoontooda geynaysa muhiimaddu waxa weeyaan inaynu la tartanno inaynu tartanno wax baranno iskuulka ardayda hala keeno ardayda hadalka dheereema imaantika aan noo timaadeen maanta idinkoo mahadsan yaanu idinku soo dhawaynaynaa dadweynaha iyaga iyo odayaasha iyo culimaawudiinka markuu warkiinunu soo gaadhay waxaa intaa isu soo gadaamay oo aanu sugaynay ilaa saaka idinkoo mahadsan salaanta horta naga guddooma madaxdayada sharafta leh ee gobolka intaa waxaan raacinaya baahidayada hay-ati la yidhaaho intaa dee waxqabsi itaalka yaan dee gaadhnay intaana dee waxaan ugu sameeyey dowladda iyadoona maruna soo gadho harana cabashadeedu waanu u geynay waxaa naga dhiman aanu ka cabanaynaa waxyaabo badan fara badan oo horta waxbarashadu annaguna aanu dhinacayaga canaan ku yeelanay ama waxa dee lagu tartamaya horta waa waxbarashada xagga caafimaadkana m c s kaa yar magaaladii magaalo weyn bay noqotay waxay u baahan tahay dhakhtar ka weyn iyo iskuulla waaweyn dhulka khale baanu ku aragnay meelaan dadba joogin iskuulla waaweyn oo dhowr galaasi qabadaadaan waan cidina gelayn haddii lanoo soo rarayo iyo cagila loogu samaynayo horta kuwaa lanoo soo wareejiyo hadaan dar kale noo samaynayna madaxdayada sharafta leh ee gobolka sidaas iminkana waxaanu ku daynaa wixii canaan xagga ubadkeega aad naga aragataan waanu ku dadaalaynaa waanaan dhadhaminay waxbarashadii maanta wixii madaxdayada iyo cuqaashayada iyo intaaba waana la naga canaantay iminkana waxa weeye macalinna waa lanoo keenay macalimo horena waa joogeen iminkana dadka waaweyn baa iminka bawaagta sito oo dhigto macalinta diinta iminka la dhigaya
raggii dhallinyarada ah ama qaadka cuni jiray waxaanu ku talagelaynaa iyo raggii iyo dumarba inaanu qaadanno oo wax baranno dad yar iyo dad waaweynba sidaasaanu ka tamarinaynaa madaxdiina gobolkana aanu u sheegayn labadan galaas aynu hoos fadhinaa waxa weeyaan laba galaas oo communitigu dhistay halka galaasee shishe haraa loo dhisay 2004 baan u malaynayaa in la dhisay galaaskana imankaa lagu daray imanka daahiyadu ay naga xigaan oo aan si rasmi ah weli quruxdiisii iyo wixiisii ay wax ka dhiman yihiin communitiga waxaa dhistay deegaanka macallimiinina way ku qoran tahay oo mushahar ku qaata hadday tahay waxbarashada diinta malcaamadaha oo guna ku siiyo mayorka degmada berbera iyo macallinkii kale ee iskuulka ku qornaa oo isna jooga waxaan ku soo kordhinay hal macallin oo kale oo maadi iyo diiniba yaqaana oo la soo xulay oo laynooga keenay burco oo isaguna imanka xaadir ah waxaynala jooga guddi la yidhaaho guddida wadajir oo guddi yaroo gaar ah oo dhaqaale iska ururisa ilaahay dartii loola baxo oo laga dhisay galaaskan imanka macallinka gunadiisana laga kaabayo waxa aanu intaasaanu annagu haddaan communitiga aanu nahay aanu qabsannay idinkana waxaanu idinka rajaynaynaa wixii naga dhiman inaad noogu dari kartaan oo noogu dartaan heer qaran iyo heer degmaba galaaskan horta qalabayntiisa way dhiman tahay oo waxaa la doonaya qalabayn wixii kale lagu dari karayana in lagu daro inkastoo ay ku xidhan tahay ardayda iyada sidaanu arday u keenno annagu oo arday loo helo waan filaya inay waajib ba idinku tahay haddii arday la helo inay dhistaan haddana taan waanu idinsii faraynaa waa idinka codsanaynaa waktiguna waa gaaban yahay oo waxaa ka soo dhul badan baa soo marteen walaalayaal anoo ku hadlaya afka wadajir guruub guddoomiyahoodiina ah kolley ururkani waa urur khayri ah siiba ahaana deegaamadan wax ka qabta xagga waxbarashada hadday tahay xagga diiniga iyo hadday tahay xagga maadiga labadaba markii aanu haru soo marnay deegaankan waxbarashadiisa aanu aragnay hal qol oo keliya inuu taagan yahay aanu aragnay waxaanu ku korlaynay qolkan maanta aynu xadhiga ka jarnay waxaanu kaloo keennay oo aanu ku soo kordhinay macallin isaguna maadiga iyo diinigaba dhigaya markaa waxaan mas-uuliyiinta iyagana aan ugu baaqayaa in iyaguna ay qaybtooda ay ka qayb qaataan hadday tahay markaa kuraasidii iyo macallinka laftiisa kaabistiisii iyo hadday tahay iskuulkoo la yidhi fidhinkii waa laga jaray in loo soo celiyo dhammaan waxyaabihii naga dhiman oo dhan waxaanu doonayna inaanu qoraal ku soo gudbinno insha allaahu waanu ka howlgeli doonnaa wakhtiga waa kooban aad iyo aad baan idiin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu soo dhoweyntaa diiran eena soo dhoweyseen aad baan idinka mahad celinaynaa waxaa kaloo iyaduna runtii qiimo leh inaad tihiin bulsho ee is abaabushay wax u qabsanaysa si fiican u abaabulan dadkuna mar hadduu is abaabulo oo horumarka isu abaabulo waxbuu qabsan karaa runtii waxaa idinka muuqata inay is abaabusheen si wanaagsan u abaabulan tihiin si wanaagsan u soo jeedaan wax qabsina aad diyaar u tihiin taana waan idinku hambalyeynaynaa waxaan kaloo hambalyeynaynaa ururka isaguna isu taagay sida mutadawacnimada ah inuu dadkiisa wax u qabto isagana waa hambalyeynaynaa intaa markaan ka gudbo sidii la sheegay waxbarashadu waxa weeyaan waxa bini aadanku uu ku kala dheereeyo ama ku kala horumaro waxaa loo baahan yahay markaa cid kasta bulshada inay isgarab taagto sidii waxbarashada deegaanka kor loo qaadi lahaa waxaa qabsateen waa ku mahadsantihiin ummaddiinniba wax u qabateen ubadkiinnii ayaa u dhisteen waa arrin qiimale weeye qofku wuxuu waxgeliyo waxaa ugu qiimo badan wuxuu ubadkiisa geliyo waayo waxaynu ku tabcaynaa
adduunyada korkeeda waxa yaal waxaynu ku tabcayno waxa ugu qaalisan ubadkaa yar baa ugu qaalisan daaraha aad dhisteen iyo waxaa geliseen oo dhan waxaa ogaataan in ubadkiinnii geliseen waa arrin qiimo la weeye ubadkaa yaryar baana runtii hadhow loo aayayaa qof kastaa markuu weynaado ama aad itaal gabto waxaad gacmihiisa ku dhacaysaa ilmaha yaree maanta biyahaada aduu gacmaha ku hayso maalintuu yaryay markaa haddii loo kaco si wanaagsan loo koriyo wax la baro caqligiisa iyo maskaxdiisaba la koriyo la maalgeliyo maalintaad adiguna gacantiisa ku dhacdo ayuu isaguna ku ilaalinaya ku daryeelaya marka sidaa waa in loo fahmaa annagu kolley maamulkii gobolka nasiib wanaag waa dhannahay labadaa galaas ee aad dhisateen waxaa loo baahan yahay in ardaydu aad keentaan aad buuxisaan markay labadaasu buuxsamaan laba kalena waa nagu khasab inaan keenno haddii aan la yidhaahdo waxaa hore u sii joogay macallin baa hore u sii joogay dowladda ka gunnaysan guddidana odayaashana waxaan isku aragnay kolley burcaan isku aragnay markay macallinka kale keenayeen macallinkaa kale aa keenteenna isna gunnadiisa waa ballan qaadaynaa haddii aan la yidhaahdo waa idinka kor qaadaynaa annaga iyo maamulka dowladda hoose wixii qalab ahee ka dhimanna waa keenaynaa haddii aan la yidhaahdo waxaase inoo ballana waxaa dhisan in laga shaqaysiiyo la ilaaliyo hareeraha laga joogo ay noqdaan kuwa ujeeddadii laga lahaa fuliya oo ubadkii yaryaraa wax lagu baro annaguna wixii dhiman waa waajibna saaran inaannu keenno wixii dhiman haddii aan la yidhaahdo marbana inta ay tirada ardaydu leeg tahay ayay noqonaysaa hantida la keenayo iyo dadaalka hawsha la keenaya baahidunbay marba ku xidhnaanaysaa waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba idinku adkaynayaa idinkula dardaarmayaa sidaa idinka muuqata ee u abaabulantihiin aa isu abaabusheen inaa u garab taagnaataan waxbarashada iyo arrimaha bulshada ama hantida la wada leeyahay taasunbaa loo aayaya haddii aan laydhaa taasunbaa lagaga baxayaa duruufaha adag lagaga baxayaa marka labaad waxaan farxadda la wadaagaynaa deegaankan iyagu iskooda isu xilqaamay iyagoo kaashanaya ururka mutadawiciinta ah ee wada jir iyagana aad baan ugu mahad celinaynaa ilaahayna waxaan uga baryaynaa subxaana wa tacaala sadaqaddaa ay bixiyeen halkii ay ka soo saareen wax ka khayr badan iyagana ilaahay ugu bedelo annaga waajibaadkana saaran sidaa uu sheegay suduuhu horta miftaax baan leenahay anagu dowladdu miftaax bay leedahay miftaaxa qofkaas siduu u furto ama meeshuu ku furto ayuunbuu furaa haddii dadku ay furi kari waayaan dowladdu ma furto danta guud waxaa ugu horreeya waa biyaha waa inay nolol suurto gashaa oo dadku ay degaan biyaha marka la helo waxaa ugu horreeya la eegaa waxa weeye waa iskuulkaas hadduu hanaqaad noqdo waxa soo raaca xanaanada markay hanaqaad noqotona waxa soo raaca maxaan ku dhadaa waddooyinkii iyo horumarkii oo dhan oo nabadgelyada iyadu ugu horrayso sidaa awgeed idinku isxilqaamay oo iminka galaaska idinku dhisay annaga weli saluug baan ugu jira saluuggaan ugu jira waxa weeyaan waktiga waxbarashadu waa sanad wey macallinku 45 arday haddii arday ku kordho macallin labaad baa waajibaya class labaad baa suurto galay oo ardaydii way korodhay baa la odhanayaa marka saluuggan ugu jira waxa weeye waxaan u baahannahay in iskuulkan dee kolba galaas la dhisaa macnama samaynaye ubadka oo la keenaa macna samaynaya marka waxaan waalidiinta weliba haweenka raggu waa iska qiyaa tagaa meelahaasu iska meeraystaaye hooyadaa ku dhabar jabtee ilmihii ku anfacayey ee mustaqbalkaaga wax kuu tarayey ee berito dowladdaa ka mid noqonayey ee wasiir noqonayey ee barasaab noqonayey ee madaxweyne noqonayey inaad iminku maanta hiilkaaga baahan yahay inaad waxbarashada keento ilmahaaga intaad wax barto ayuumaad intifaacsanaysaa
ilmahaaga intuu waxbarasho yahay ayuunbaad qeyrkii dhaafisay haddii kale de wuxuu noqonayaa un xamaal iyo waashmaan buu noqonayaa iyo iyo gacanyare ayuu noqonayaa ninka ladane dee mutacalinkee soo shaqaystay marka waxaan hooyooyinka aada ugu adkaynayaa waxaanu doonaynaa macalin la-aani ma jirto lacag la-aan macalin looma waayin dowladdu uma waayin galaasa dhistana umay waayin meel laba kaagama xidhna miisaaniyadna kaagama xidhnaa haddaan aragno labadan galaas soo buuxaa oo aad carruurta geedka hoostiisa aada shantan iskuul halkan aan ugu dhiga geedka hoostiisa annagaa keenayna 5 iyo 4 iyo 6 ba keenayna iskuul dhan baan keenayna kuwa waxaad salamaan leeyahay taayirha loo yeelo halkooda ku dumaana kuwa kalenu keenayna sidaa u cabanaysaa unbaa laga yaabay inay u cabanayeen markii hore iminkana waan ognahay iskuulo badan oo maxaan ku dhahdaa xidhan baan ognahay oo deegaanka ku yaala markaa reehayeeti waxaan leenahay waan idinku celcelinaynaa war carruurtiina waxbara si ay qeyrkood uga horeeyaan maanta sidaa uu sheegay istuuhu waxaa lagu kala badinayaa lagu kala dheeraynayaa waa hadba dadka iminka waa la sahamiyaa macdan baa laga sahamiyaa shidaal baa laga sahamiyaa hayeeti iyo dhuxun iyo qaraadh iyo intaeedan ilaa iyo bahalaleytan waa lagu soo laba noqdaa un berri haddii la aado waa la daloolinayaa waanubadkaagaanad kii hadhowta waxaa lasoo saara aan waxba kuga qaybsanayn maxaad ka noqonaysaa waan kugu tiratiraynaynaa waan kugu celcelinaynaa nimca iyo khayraad baa fadhiya cid intifaacsan ilaahay baa og laakiin sidaa loogu soo noqnoqonayo haddaad aragta meel lagu soo noqnoqdo yaa haa dadkeena soomaalida marka badhamayso waxay tahdaa maxaa naga soo noqnoqonaya wana qofkan dee soo noqnoqotay manaqba daama maqashay waa laydinku soo noqnoqday waa laydinku soo noqnoqonaya weligeedna alfaraa laga gaf maayo marka la xaqiijinayo dowladdu way daloolinaysaa markay dowladsana xuquuqdaad leedahay haddii aad weydo mutacalin loo waayo dee si aan sheegin washbaan baad ka noqonaysaa marka waan idinku celcelinaynaa waxa ugu horeeya ee ilmahaaga aad bartaa qur-aanka ilaahay iyo diintiisa ha noqoto carabka ilmaha waxa u adkeeyaa waa qur-aanka ilaahay hadduu qof ilmaha qur-aanka yaqaanaa iskuulka isagunbaa u sarreeya ugu horeeya jaamacadana isagunbaa ugu horeeya diinteennu waa dabar weey waa waxa qofka celiye ee damiirkiisa qabta weey waa waxa naxariista ku beera ee inuu dib ugu noqdo dadkiisa sida imika nimada dhalinyarta dee wadajiroo kale wejigoodu nuurayoo kale dee cibaado iyo diin baa ka muuqata qalbigiisa dee ayaa hadlaya oo u sheegaya ole dadkaagii dib ugu noqo dadkaagi wax la qabo marka waxaan leenahay iskuul ha ka warwarina oo xanaanaha ka warwarina oo waxqabad ha ka warwarina waxaan noo igmateenaan diyaar u nahay inaan wax idii qabanno laakiin haddaan dee idinkeedi ka weyno de waxaan odhanahay eti waa nimaadnaa xagaagii waa nimaadna 7 bilood xagaa ayaa jira ama buuraha dadku ha fuulaan ama qabobaha siijeedka ha u dhaadhacaane markaan nimaadno meeshii aan carruurni baan wax ugu dhiganayn waana cidi joogin dee halkaa tacab la gelin maayo ila kuwii tayrada lahaa buu noqonayaa marka waxaan idin leenahay inta hadha oo dadka degaankii way badan yihiin anigu waan aqaanaa degaanka dadka degaankan wataa dee maxaan ku rahdaa feeryaala ka muuqato dee marka halkan loo eega taasaa sii kul soo maaha lagama guura dee oo lagama taga dee markaa maxaynu ilmaheenna yar dee geela wuxuu ka soo celiyaa 15 kilomitir buu ka soo celiyaa maalintii geelu 15 kilomitir ayuu dhegad la soo dhacaa ka soo celiyaa adhigana dee maxaan ku intaasoo daaqsaneed buu ka soo celiyaa dee hadduu dhagax ka soo yidhaahdo noo yimaado malcaamadda oo dhagax ka soo yidhaahdo geelika hore wax dhigto geelika dambena adhigiisa caraabiyo dee waxbuu noqonayaa marka waxaan leeyahay idinku celcelinayaa si ay hanaqaad u noqoto oo ay meeshan horumar u gaadho oo ay qeyrkeed u dhaafto ubadka ku tabca annaguna diyaar baan idiin nahay waxaan maalin walba idinku soo noqonnaa oo xaggaa idiin dhaafnaa oo caawimooyinka u keennaa in isbeddel ka dhaca halkan nastaciinu calaa umuuri diyaan wadiin dhammaan odayaasha iyo dhallinyarada iyo haweenka dhammaantiin waan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka labaad waxaan idinka mahad celinayaa soo dhoweynta qiimaha leh ee aada noo samayseen iyo sida fiican ee aada noo soo dhoweyseen intaa kadib maanta waxaynu xadhigga ka jaraynaa iskuulkan idinku aa ku tacabteen oo aad dhisteen waxaa farxad weyn ah inay horta communitigu wax qabsadaan
oo ay wax isu geeyaan oo yidhaahdaan war halkan intaynu inagu horta qabsan karnaa maxaase aynu xukuumaddii ka codsannaa waa arrin aad u qiimo badan waana asiibteen waana idinku hambalyeenayaa waxa weeye markaa idinkuna wax qabsataan ood fikirkaa keentaan annaguna wixii idinka dhimanaya adeegga bulshadu ay u baahan tahay oo dhanna waa naga heli doontaanoo waanu baadi doonaa haddii la idhaa waxaa loo baahan yahay in la wada shaqeeyo oo la wada socdo oo intood baahidiina isku ururisaan aad soo gudbisaan ood qoraal ka soo dhigtaan annaguna waanu ka soo jawaabay haddii la idhaa waxa weeyaan dadkeennu waa xoola dhaqato waxaa dadka ku yara culus xoolihiina in la raacaa la doonayaa iskuulladiina in la camiraa la doonayaa sidii laysugu dhex wadi lahaana waa la doonayaa xoolaha dhaqashadoodiina waynu u baahannahay waxbarashadiina waynu u baahannahay waxaynu ka fikiraynaa waa horumar waxaynu ka fikiraynaa waa carruurteenna inu waxbarno waxaynu ka fikiraynaa waxa weeyaan inaynu meelaha ugu sarreeya ee waxbarashada laga gaadho inaynu ka gaadhno sidaynu ku gaari lahayn baynu doonaynaa inaynu yeelno marka waxaa la doonayaa in fikirkeeda la keeno sida ku iman lahayd ilaa xoola dhaqataynu nahay dhammaantiina waxaynu taas samaynaynaa haddii la haydhaa xoolaha iyo waxbarashada isku wada iskuulladii waxay idinku yaallaan dee reeraha dhexdoodii ba idinku yaallaan iskuulkan imaka reeri waa kuwa halkaa ka wada muuqda yaan laga caajisin ilmaha ha lagu soo barbaariyo malcaamadda ha la baro iskuulkana ha lagu xigsiiyo ilaa iyo inta aad wadi kartaan wixii idinka xoog bataa dee waxa weeyaan xukuumaddaa u soo sheegaysaan waa laydin ajiibayaa waxna waa laydinla qabanaya haddii la idhaa waxyaabaha aad u baahanadeen ama iskuulka ama xagga caafimaadka ama wixii halkaa aad ka dhawaajiseen waa ti la ballan qaaday raggiiga horreeyaa ballan qaaday saasaanay ku soconaysaa waana fulaysaa haddii la idhaa idinkana waxa weeyaan wada shaqayntaas iyo taa aad muujiseen ayaynu ku wada shaqaynaynaa wada shaqayn fiican wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum